السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال كوسو دوادا برنامجك maxaa ka cusub suuqa iibsiga ciyaartoyda. Barnaamijkan oo ka daawataan Cusubla TV. Fadlan haddii aad ku cusubtahay channelka subscribe saar haddii kalena videoga si share gareey si asxaab fara badan u gaaro. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa gudbisay 55 milyan oo pound u gudbisay kooxda Sevilla si ay ula soo saxiixday ciyaaryahanka lagu magacaabo Julius Koundé. kooxda Barcelona ayaa sidoo kale daneynaysa in ciyaaryahanka la soo wareegto balse Chelsea ayaa ka war sugaysa kooxda kubadda cagta Sevilla inay ka jawaabto dalabka kooxda kubadda cagta ee Chelsea. kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa ka fogaanaysa isla dhacdadii ka dhacday ee ka qabsatay kooxda kubadda cagta Barcelona markii Barcelona ay la wareegtay Rafinha halkaas oo Chelsea ay lacag ay gudbisay kooxda Leeds ay aqbashay balse ciyaaryahanka oo doortay kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Chelsea ma la soo saxiixan doontaa ciyaaryahanka daafaca kooxda Sevilla ee Julius Koundé. Erik ten Hag tababaraha kooxda kubadda cagta Man United ayaa sheegay in ay doonayaan inay ciyaartoy badan la soo wareegaan ay kooxdiisa ay xoojiyaan. sidoo kale su'aal laga weydiiyay Cristiano Ronaldo ayaa wuxuu sheegay in mataqaanaa walwal weyn uusan ka qabin Cristiano Ronaldo inuu tababar ku soo noqon doono. Cristiano Ronaldo ayaa ilaa hadda tababarka kooxda kubadda cagta Man United soo xaadirin isagoo lagu wado Cristiano Ronaldo in uu ka tago kooxda kubadda cagta Manchester United. wakiilka ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa u raadinaya koox uu ku biiro. Cristiano Ronaldo ayaa daneynaya sanadihiisa u dambeeya ee ciyaaraha kubadda cagta inuu ka sii ciyaaro horyaalka Champions League. Man United ayaan u soo bixin Champions League sanadkii la soo dhaafay. kooxda PSG loo bandhigay way iska diiday sidoo kale kooxda Atletico Madrid oo loo bandhigay inay la soo saxiixato Cristiano Ronaldo way ka cagajiiday sabab la xiriira mushaarka qaaliga ah oo qaato Cristiano Ronaldo. balse wakiilka Cristiano Ronaldo ayaa ballan qaaday in 30% oo Cristiano Ronaldo diyaar u yahay inuu mushaarkiisa dhimaso ugu biiro kooxda Atletico Madrid. haddii uu ka tago kooxda kubadda cagta Cristiano Ronaldo oo ka tago kooxda kubadda cagta Manchester United kooxda kubadda cagta Man United ma haysto ciyaaryahanno weeraryahanno gool dhaliyaal ah oo bedeli kara booska Cristiano Ronaldo. waxaa jooga Rashford sidoo kale waxaa jooga ninka la yiraahdo Martial oo ka soo noqday ama balse labada ma buuxi doonaan booska Cristiano Ronaldo ma dhalin doonaan goolasha oo Cristiano Ronaldo sanadkii la soo dhaafay kooxda Man United u dhaliyay goolashaas oo kaalin muhiim ah ka qaatay Man United hadda booska ay ku jirto walow booska ay soo gashay Man United sanadkii la soo dhaafay oo aad u liito. kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa iyadana doonaysa in ciyaartoy laba gaaraya ay la soo wareegto si ay u buuxiso boosaska ka banaanaan kara kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Arsenal ayaa waxa lagu wadaa inuu ka tago ciyaaryahanka garabka midig kaga ciyaaray ee la yiraahdo Nicolas Pepe ayaa waxa uu dareynaya kooxda kubadda cagta ee Newcastle inay la soo wareegto. booskaas waxa ku soo haray kaliya Saka balse Arsenal ayaa doonaysa in ciyaaryahan kale booskaasi ku lamaanayso oo Saka bedel u noqda. sidoo kale Arsenal ayaa doonaysa ciyaaryahan qadax inay la soo wareegto waxaa kamid ah Yuri Tielemans oo ciyaar kooxda kubadda cagta ee Leicester City. sidoo kale kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa daneynaysa ciyaaryahan ku ciyaar kooxda Juventus ee magaciisa la yiraahdo Arthur. daafaca bidix ee kooxda Brighton lagu magacaabo Marco Cucurella ayaa aad uga niyad jabsan kooxda kubadda cagta ee Brighton maadaama kooxda Brighton ay ku doonayso lacag aad u fara badan kaasoo caqabad ku noqon doona in kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay iibsato. ciyaaryahankan ayaa u sheegay staffka ama shaqaalaha kooxda kubadda cagta ee Brighton inuu doonayo inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Manchester City balse kooxda Brighton oo ciyaaro ayaa lacag aad u badan ku doonaysa taasoo caqabad ku noqon doonta rajadiisa ama riyadiisa inuu u ciyaaro kooxda kubadda cagta ee Manchester City. barnaamijkii maxaa ka cusub suuqa iibsiga xilligan waa naga intaa waa ku maasantiin la socodka barnaamijka. fadlan haddii aad subscribe saaran channelka hadda saar subscribe sidoo kale like saar videoga si asxaab fara badan u gaaro.